inuu Somaliland uu curyaamiyo kiyoon awood leh ku curyaamiyo maantana oo ninkii dadka nolosha ku gubay tuugta dadka nolosha ku gubay golasha ayuu ku gubay waxa weeye toojarka u xun wax nolosha qof ku guba waxay nagu dameysay nabi ibraahim alayhi salaam oo la dabcay la gubo tuugsaas uu sameyn jiray qof waana taswiiriis walaaya maxkamadna way qaran marka taas waxay nagu tusaa laba arrimoodba weeyo oo ninkaasi uu ku dheeldheelaya horta inagu dheeldheelaya oo in leeyahay ma jirtaan waxa tihiin ma jirto inaga dadka xasuuq lagu sameeyay takana wuxuu ku dheeldheelaya ragii isagoo 22 maalmood joogay doortay in madaxweyne noqdo uu shalaytana u diidiyay inay kasmaay tagaan horta dadka maanta aan jirin ee la arkay dad jira aan ahayn waa labadeena qolo dadkana la xasuuqay maalin kasta ninkii uu gaalku salaami waayay butcher of Hargeysa loo bixiyay Morgan oo maalin kasta intuu garowe yimaado madaxa garowe isla soo taswiiriso kana waa too kala tana wax kale waxayna tusaysaa yani reer muqdisho sheekh shariif xasan sheekh raga inta la yiri dagaalad laga dajiyay la yiri waado imka la burcad ma tii kartid anoo imka la burcad ma tii kartid ka war oo Muuse ila marka waxa weeye wax leeyahay wax atiin ma jirto I came back وطهران وشاوي نفتي محمد سياد براقة شيء وحولي we came back وان صون غني and will punish you واحد كنا ندون وجوابه نكان اسنا رئيس الوزراء كشاق أكتر كا ما كان إلى خير وأنا جا هذا عقل هذا هذا عقل هذا ذل بار رئيس الوزراء قاعد يجي سومالي حاجات سومالي لكن قدومي دد بكدود يا حلقي دولة سياد برا de dhibaatooyin weyn baa dhacay oo deegaamada Soomaaliland oo dhan kamay dhicin xataa dadka qaar baa ku doodaya in saraakiil Soomaaliland ka soo jeeday ay dhibaatooyin kuwa la mid ah ay ka geysteen qaar ka mid ah gobolada Soomaaliya sida gaalkacyo oo kale arintaasi ba meel jirin aan waxyaalo ka xanaaqna weey barkadaha oo ka burburiyay magaalada Maxamed Siyaad Barre magaalada reer Garowe iyo magaalooyinka Ergaaba Hargeysa Burco maslamid bay xasuuqa keenay Soomaaliya dagaalada ma sameeyay marka adiga lagu duudsiyo ciidankeena halka joogay dhagoweynay ay ahaayeen ciidanka saraakiisha halka joogtay ciidan marka SSD la dagaalami jireen jabhada la dagaalami jireen maatida ma leeyin jireen ma isku xilxil jireen laakiin hadda isku soo taswiir anu hadaan soo baxnay programkayga waxa ku jirta dadkii xasuuqa Soomaaliya sameeyay si dadban iyo si toos ah loo soo qabta walaanu halka joogay hadaan soo baxa Morgan inta 200 kun bixiya koo la sidii keenaysinkii ku Yahuud Jarmalka Yahuud soo qabteen oo tug halka mareen marka aynu inagu dhaadheero isku soo taswiro Dani isku soo taswiro Morgan oo isku soo taswiro inaga farmaajo tuki dadka nolosha ku gubi jiray waxayna tusaa inaan nahay ninkii yiri qaad moojaanay qabaan wax kale aynu garanay Engineer Faisal ayaa sheegay in Somaliland aanay wax wada hadal la galaynin Soomaaliya inta uu xilka hayo madaxweyne Farmaajo ninkaad aragtay maanta international community markuu ka daalay inuu waxna yeelo soo dhiiga inuu kiciyo isla taswiiray dadkeena gubay ceelasha ku guriyay ay hadana maalin kasta wax la soo hadlayaa madaxweynaha geele uu leeyahay anaga iyo Somaliland wada hadalo waxaan u sheegin hadaba annaga siyaasadda iyada xusbiga u cid waxay tahay iyo qaranka iyo mujtamaca reer Somaliland la fariisan mayno isii qeyrkiiba walaalaha Soomaaliya markay timaado dad miyir qaba oo la soo doortay oo garanaya waxa maanta taagan garanaya oo ku jirin aarsi iyo qabyaalad cunsuriyada maalintaas aan la fariisan doono international community hortooda Engineer Faisal Ali Waraabe gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee Somaliland ee UCUD waxa uu sheegay in madaxweynaha wadanka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle aanu dhax ka ahayn wada hadallada u dhaxeeya Somaliland iyo Soomaaliya sida daraadeedna aanay aqbalaynin in wadanka Djibouti lagu qabto wada hadalladaasi Ismaaciil Cumar Geelle waxa uu sheegay Ismaaciil oo adiga iyo front countries-ka shir ku qabsan mayno waxaan ku qabnaa inaan adu ka ahayn Ismaaciil Mageele arintii daacad kama waa Muqdisho ku xiran yahay Somaliland ma ogola sida awgeena guriga ku qabsan mayno intaas ay Muqdisho ku jirtaa maxad weyn weeydi waan ka xishoonana laakiin adu naga ma xishoonaysid
على واحد كل شيء هذا نجح شلون واحد كله كويل مينه قاع البعض نوته لكن شير نو قبل ميس وحبا يوم موسى أو يريد كو قبل ميس حرام بينك نقول له غلطة soo kordhay engineer hore ayaa Somaliland iyo halka lagu wada hadalsiiyay iyo Somaliland iyo Soomaaliya Djibouti kulankooda dhacay kulankii ay saxeen madaxweyne Silaayi iyo madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud Djibouti heshiis aan soo sameynay ayuu meesha lagu saxay ya laakiin waxa weeye Ismaaciil Umar Geele 28 sano uu inaga soo horjeeday dadkiis waxay ku dhintaan beledweyne ku dhintaan anaga waxaan ku leenahay warwaadna ogtay aad bal iska diiday Soomaaliya anaga maxaad noogu qasbisa hadduu Soomaali ka shaqeeyay ha ku darsado isaga laakiin soo gal madaxweynuhu tagayo waa calo jilaaca waa waxa xun waa jilaaca xun inuu ila ku abuuranahay shisheeya waan u nugulahay no Ismaaciil waa cadowgeena xamar inuu dhiso doonaya ciidamo u sameeyaa how can be so ugu tirkana ninka ciidamo u sameeyaa xamar Engineer Faisal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga Ucud oo maanta waraysi gaar ah siiyay telefishinka Home Cable ayaa kulankii wadanka Mareykanka ku dhaxmaray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo Cornel Yusuf Cabdi Cali Tuke oo dhawaan maxkamad ku taala wadanka Mareykanka ay ku heshay dambi ah inuu tacadiye u geystay dad ku noolaa Gibiley xilligii xukuumadii Siyaad Barre waxa uu ku tilmaamay cadaawad madaxweyne Farmaajo uu qabo shacabka Somaliland waa sida uu hadalka u dhigay waxaan u sameeyay markii hore aan ogeyn inuu xoogiisa saaray inuu Somaliland uu curyaamiyo kiyoon awood leh ku curyaamiyo maantana oo ninkii dadka nolosha ku gubay tuugta dadka nolosha ku gubay golasha ayuu ku gubay waxa weeye torture-ka u xun wax nolosha qof ku gubaa waxay nagu dameysay Nabi Ibrahim alayhi salaam oo la dabcayn la gubo tuugsaas uu sameyn jiray qof waana taswiiriis walaaya maxkamadna way qaran marka taas waxay nagu tusaa laba arrimood oo ninkaasi uu ku dheeldheelaya horta inagu dheeldheelaya oo inay leeyahay ma jirtaan waxa tihiin ma jirto inaga dadka xasuuq lagu sameeyay ta kalena wuxuu ku dheeldheelaya ragii isagoo 22 maalmood joogay doortay in madaxweyne noqdo uu shalitan u diidiyay inay Kismaayo tagaan horta dadka maanta aan jirin ee la arkay dad jira aan ahayn walabadeena qolo dadkana la xasuuqay maalin kasta ninkii uu gaalku salaami waayay butcher of Hargeysa loo bixiyay Morgan oo maalin kasta intuu garowe yimaado madaxa garowe isla soo tasawiriso dadkana waa too kala tana wax kale waxayna tusaysaa yani reer Muqdisho Sheekh Shariif Xasan Sheekh ragaa inta la yiri dayaalad laga dajiyay la yiri waado imka la burco ma tii kartid anoo imka la burco ma tii kartid ka war Muuse ila marka waxa weeye wax leeyahay wax atiin ma jirto I came back وطهرنا وشوي نفتي محمد سياد براقة شيء وحولي we came back وان صون غني and we'll punish you واحد كنا ندون وشوابه نكان اسنا رئيس الوزراء كشيء أكتر كأ ما كان إلى خير وأنا هذا عقل هذا عقل هذا ظل بار رئيس الوزراء قاعد يجي Soomaali hagaaj Soomaaliya laakiin gudoomiyeed baa ku doodaya xilligii dawladda Siyaad Barre dhibaatooyin weyn baa dhacay oo deegaamada Soomaaliland oo dhan kamay dhicin xataa dadka qaar baa ku doodaya in saraakiil Soomaaliland ka soo jeeday ay dhibaatooyin kuwa la mid ah ay ka geysteen qaar ka mid ah gobolada Soomaaliya sida Gaalkacyo oo kale arintaasi ba meel jirin adeer waxyaalo ka xanaaqna weey barkadaha oo ka burburiyay magaalada Maxamed Siyaad Barre magaalada reer Garowe iyo magaalooyinka Ergaaba Hargeysa Burco maslamid bay xasuuqa keenay Soomaaliya diyaarad ma sameeyay marka adiga lagu duudsiyo ciidankeena halka joogay dhagoweynay ay ahaayeen ciidanka saraakiisha halka joogtay ciidan baka SSD la dagaalami jireen jabhada la dagaalami jireen maatida ma leeyin jireen ma isku xilxil jireen laakiin hadda isku soo tasawir anu hadaan soo baxnay programkaaga waxa ku jirta dadkii xasuuqa Soomaaliya sameeyay si dadban iyo si toos ah way loo soo qabtaa walaanu halka joogay hadaan soo baxa Morgan inta 200 kun bixiya koo la silii keenay ku Yahuud Jarmalka Yahuud soo qabteen oo tug halka mareen marka aynu inagu dhaadheero isku soo tasawiro Dani isku soo tasawiro Morgan oo isku soo tasawiro inaga Farmaajo tuuki dadka nolosha ku gubi jiray waxayna tusaa inaan nahay ninkii yiri qaad moojaanay qabaa wax kale aynu garanayn Engineer Faisal ayaa sheegay in Somaliland aanay wax wada hadal la galaynin Soomaaliya inta uu xilka hayo madaxweyne Farmaajo
ninkaad aragtay maanta international communitygii markuu ka daalay inuu waxna yeelo si uu dhiiga inugu kiciyo isla taswiiray dadkeena gubay celasha ku guriyey ayaa haddana maalin kasta wuxuu la soo hadlayaa madaxweynaha geele uu leeyahay annaga iyo somaliland wada hadallo waxaan u sheegin haddaba annaga siyaasadda iyada xusbiga u cid waxay tahay iyo qaranka iyo mujtamaca reer somaliland la fadhiisan mayno isaga qayrkiiba wada hadal soomaaliya markay timaado dad miyir qaba oo la soo doortay oo garanaya wacyiga maanta taagan garanaya oona ku jirin aarsi iyo qabyaalad cunsuriyada maalintaasaan la fadhiisan doona oo international community hortooda injineer faysal cali waraabe gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee somalilan ee ucud waxa uu sheegay in madaxweynaha waddanka jabuuti ismaaciil cumar geelle aanu dhex ka ahayn wadahadallada u dhexeeya somalilan iyo soomaaliya sidaa daraaddeedna aanay aqbalaynin in waddanka jabuuti lagu qabto wadahadalladaasi ismaaciil cumar geelle waxaan u sheegayaa ismaaciilow adiga iyo front countrieska shir ku qabsan mayno waxaan kuu qabnaa inaanad adu ka ahayn ismaaciil mageele arrinteeda daacadka maaha waa muqdisho ku xidhan yahay somaliland ma ogola sidaa awgeedna gurigaaga ku qabsani mayno intaas muqdisho ku jirtaa maxaad uman weydi waan kaa xishoonaynaa laakiin adu nagama xishoonaysid waxaan kuu sheegay haddaad naga xishoonayn wax kale kuu yeeli mayne gacal baad noo tahay laakiin shir noo qaban maysid waxba yaanu muusay aw yeeri ku qaban maysid xaaraan bay naga tahay guriga lagu qabta waxaa soo kordhay engineer hore ayaa somaliland iyo halkaa loogu wada hadalsiiyey iyo somaliland iyo soomaaliya jabuuti kulankooda dhacay kulankii ay saxeen madaxweyne silaayi iyo madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud jabuuti heshiis aanu soo sameynay ayaa meesha lagu seexay ya laakiin waxa weeye ismaaciil cumar geele 28 sano uu inaga soo horjeeday dadkiis waxay ku dhintaan beledweyne ku dhintaan anaga waxaan ka leenahay war waad ogtay aad bal iska diiday Soomaaliya anaga maxaad noogu qasbisa hadduu Soomaali ka shaqeeyay ha ku darsado isaga laakiin soo madaxweynuhu inuu tagayo waa calo jilaaca waa waxa xun waa jilaaca xun inuu ila ku abuuranahay shisheeya waan u nugulahay no ismaaciil waa cadowgeena xamar inuu dhisu doonaya ciidamo u sameeyaa how can be so on ugu tirkay anaka ciidamo u sameeyaa xamar ma runtaan ku sheegina haddaba kaa xishoon waan xishoon laakiin waa naga xishoon weydee waan anagoo iska celina aan iska celina ka intaas oo fail baan hayaa wallahi billahi taala cumar geele oo dembo ka galay Soomaaliland oo inta ka xishoon laakiin hadduu inta hadda soo dhaafo waa shir baan idin qamaya farmaajo ay keenina dawladda farmaajo u tagday warada farmaajo u tag warada farmaajo u tag anagu farmaajo qeyr kale ma fadhiisano namana dhexdhexaadin kartid xasan galayd wararkoonkii bad hargeysa rabbil caalamiin salaatu ala sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam waxaan maanta jecelahay inaan dadka xasuusiyo hore waxa la inoo yiri ilowsho dhawaa maamul ba wixii xasuuq ka dhacay dalkan raadkiisa qoyanaa ayaan iska ilownaa waa ogtiino maalin waxa la xusiyay Yurub ay xusisay France lagu xusiyay dadkii ka dhintay lagu xasuuqay dagaalkii koowaad ee adduunka maanta waxa weeye 27 July waa maalintii dadka gasiiro lagu xasuuqay ee isirahaanta inta guriga laga soo baxay reer ahaan loo dilay waa soddon guuradii weey waa jiraan xasuuqo badan oo ka dhacay Hargeysa Ceergaawo meel kasta ka dhacay laakiin ka taariikhdiisa ayaa maalintan waxay ahayd 17 waxay ku soo beegantay soo maanta markabkii xoolaha ee ka baxay Berbera oo ilaa hadda xadnimo yahay waxay isweydiin leeyahay iyo xasuuqa ka madaxa yaa fuliyay waxa fuliyay Maxamed Siyaad Barre maanta xoolaha Soomaaliland hala xanimo yaa yiri waxa weeye farmaajo waxa weeye history repeats itself waxa weeye adeerkii waa Maxamed Siyaad Barre samawgi maanta xabadiisa weyn la soo gaadho wahay maciishadii ayuu inaga dagaalamaya waadan shalayteeda lahaa oo madaxweyne soo degay war dadka kala saara waxa leeyahay Soomaaliya kala saara xasan sheekh baa ahaa madaxweyne
sheekh xasan baa ahaa sheekh shariif baa ahaa weligeena iyo alheen maciishad somaliland dadka lagalama dagaalamin maanta waxaa weeye waxay taasina tusisaa in si gaar ah uu farmaajo iyo kureyda uu meesha ku haystaa inala dagaalamayaan wax la yaab leh laakiin ninka wasiirka ee la yidhi wuxuu doonayaa inuu neefka xoolaahba uu ka qaato $1 haddii 3 milyan xoola xirmaan $3 milyan buu soo xaraysanaya taas waxay ku tusisaa gruubka meesha fadhiya inay yihiin dad xaalufinaya oo doonaya ummadda lacagteeda ursadaan baddii bay iibiyeen oo ogtihiin Norwegian iyo laga iibiyey shisheeye waa ogtihiinoo ciidamo shisheeye keeneen marka waxa weeye gruub u soo talagalay inay Soomaali haddana dagaal sokeeyo geliyaan iyo isla aarsada xaalufiyaan dhaqaale urursanaya laakiin waxa isweydiin leh inagu inamee xoolaheena bana Jabuuti maraya geeliina baa ku jajabaya buuraha Jabuuti arigeeni baa Jabuuti oo ogtiin meel aan xoolo ka dhoofi karin marka waxa taasina tusaa inaan ahayn dad jiraba in maanta la haweysto ilaa xoolaha lagu yimaado waxaan leeyahay shacabka reer Somaliland halgankii uu bilaabmay hays dhiganina khilaafka dhexina joojiya haddaynu burburno ma jiriyo reer kaliya noqonayo gob gidigan waxaan wada adoonsanaya waxa la soo celinaya saacadii 1988 kii farmaajo soo celinaya waxaan leenahay dadkan waxa jaala ahayn ee USC ee dhibaatada idinka keenay marka midida u dhiibteen ragii shalayto dalka ka xoreyseen ciyaalkoodii waliba ciyaalkoodii aga xoreyseen waxaan leenahay dawladdeena iyo shacabka Soomaaliyeedna waxaynu shilin haysano waynu xoog isku geynaa ciidamadeena dhisnaa wayna ciidamada la dhisaa haddaynu baktiino xitaa wayna cudud samaysanaa saana mar dambe never again bay dhahaan yahuudu inaan genocide xasuuq dambe nagu dhicin in mar dambe dhulkeena la sheegan waxaan leenahay kuwa dibadda ka soo qaylinaya WhatsApp-kada qabiil kaga hadlaya waa one family baan nahay one family Somaliland hala joojiyo waxaan leeyahay maamulka Maxamuud Saleema intuu isku keen diro inoo kala tagi walaal xabad aanu dul soo rideen oo isku keen diri dadku qabiil ahaan ku beer la xawsanayaan waxay nin aan ku rari doon nin aan ku dajin doon yaan ku rarin dab bayna gelinayaan niman taariikhda Soomaalida ee talaadishka reer miyiga ahayd waran lagu ogaa ma ahayn naaba haysan politicians baa laakiin khiyaamada khariif ay ku hayn laakiin dagaal ma kan leenahay dadka tolaaye leh ee tolaaye ku kaxaysanayaan tolaaye inaga isku tola dadka isku deegaana isku dhaqana isku taariikh ay wasdalay ayaa bali u yeero inta dhalinaya inta ay reer Soomaaliya isku eeg waxaan leenahay qolada banaadir aan ka xumay in 150 milyan ee laga qaado Muqdisho 50 milyan waxa qaata dad aan u dhalan oo madax iska dhigaya ayaa mushaar u qaata inta kale diyaarada lagu raaca meel kale cashuura ma jirto Muqdisho la cashuura ila lagu dilaa ila lagu dhoofaa ila lagu soo shaqoola lacagtiina ha bixinina nin aan wadkiisi aanu awood ku lahayn iyo magaaladiina awood ku yeelan gilgisha maxamed siyaad baraka gilgilateen afar inay kuriyo inay ka gilgilataa ma leh saasan leh dadkeena ha kaceen dhalinyaro kaca nacaska xuna inta lacag la siiyo WhatsApp ka soo caytamay Soomaaliland ka qabaabay iska celiya maanta waxa weeye waa maalin murugale waa maalin murugale 30 sano ka baadi assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh maalintii shalay ciidamada militariga Soomaaliland waxay ka hadleen in controlkii biro loo soo qoray dhinaca deegaanka bixin arinta waan runta doonaan ka hadalno caawa insha Allah taala dadka deegaanka degana horaan ugu sheexan wareer garowe daddoon ma waa duldoon waanu sheegayna kuwa magaranaysa sanaagta bari waa dadkaasi ma daddoon oo reer dooniya waa duldoon way soo 20 kilomitir bay soo galeen dhulkan
dee arrintaas waxa weeye waa xilib saaran marka u horeysta dadka deegaanka leh in dalku dhulkooda daafacaa dawladdu gacan siisaa arrintaas waa in laga gigishaa weeye meel kasta waa laynaga soo galay meel kasta waa layna shaaqsado waxay idhaaheen wax jira maaha baa layidhi laakiin waa tan sheego dhabar la cunaa le shaf la cuna ma lihin haddaynu soo jeesano haddaynu soo taariikhda dib u raaca weligan guul laynagama helin dagaal laanno inuu dadka ma doondoonno dadka ma xumeyno quudkaynu siinaa weliba kii ku dilayaan waxaa sooriyeyna ya marka waxaan leenahay soomaaliya ha toosto dawladduna ha shaqayso madaxweyne uu maqan yahay xoolihii baa taagan wasiirkeeni xoolu wuu maqan yahay waa wasiirkii xoolaha iyo badda laba wasaaradoo waaweyn ee la iskugu riday and they are not functioning ma shaqaynayaan dadku u shaqaysa waa la dagaalamaya waa la tartamaya waxaa ka sugaysa inuu farmaajo faatixayn u akhriyo markuu soo baxay dagaalamaya waa awoogii baad ka riday ninkii koraska u diray kii waxba oqoonay kii inan kufsaday kii laga sii daayo maraykan loo diray mamlakadii baad ka dumisay marka mamlakadu soo celinaya maxaad uga cabanaysaa dala tartan waa loo ficiltan hadaa dawladda lagu soo doorto waddanka institutionka shaqaynayaan cabaadka iska daaya waa la tartamaya asalaamu calaykum loo soo furay dhinaca deegaanka bixin arrinta waan runta doonaanu ka hadalno caawa insha allahu tacaala dadka deegaanka deganaa horaan ugu sheeg waxaan reer garowe daddoon maaha waa dhuldoon waanu sheegaynaa kuwa magaalanaysa sanaagta baray waa dadkaasi ma aha dal daddoon oo reer dooniya waa dhuldoon way soo 20 kilomitir bay soo galeen dhulkan dee arrintaas waxa weeye waa xilib saaran marka u horeysta dadka deegaanka leh in dalku dhulkooda daafacaa dawladdu gacan siisaa arrintaas waa in laga gigishaa weeye meel kasta waa laynaga soo galay meel kasta waa layna shaaqsado waxay idhaaheen wax jira maaha baa layidhi laakiin waa tan sheego dhabar la cunaa le shaf la cuna ma lihin haddaynu soo jeesano haddaynu soo taariikhda dib u raaca weligan guul laynagama helin dagaal laanno inuu dadka ma doondoonno dadka ma xumeyno quudkaynu siinaa weliba kii ku dilayaan waxaa sooriyeyna ya marka waxaan leenahay soomaaliya ha toosto dawladduna ha shaqayso madaxweyne uu maqan yahay xoolihii baa taagan wasiirkeeni xoolu wuu maqan yahay waa wasiirkii xoolaha iyo badda laba wasaaradoo waaweyn ee la iskugu riday and they are not functioning ma shaqaynayaan dadku u shaqaysa waa la dagaalamaya waa la tartamaya waxaa ka sugaysa inuu farmaajo faatixayn u akhriyo markuu soo baxay dagaalamaya waa awoogii baad ka riday ninkii koraska u diray kii waxba oqoonay kii inan kufsaday kii laga sii daayo maraykan loo diray mamlakadii baad ka dumisay marka mamlakadu soo celinaya maxaad uga cabanaysaa dala tartan waa loo ficiltan hadaa dawladda lagu soo doorto waddanka institutionka shaqaynayaan cabaadka iska daaya waa la tartamaya asalaamu calaykum